inkastoo kheyraad badan uu ku jiro badda dalkeena Soomaaliya haddana badi dadkeena kama faa'iideystaan kheyraadka uu Rabbi ku manaystay. Bandhiga media ayaa u kuurgashay kheyraadka ku jira biyaha dalka Soomaaliya si ay bulshada Soomaaliyeed ay u ogaadaan qaabka ay kalluumaysatada Soomaaliyeed ay u shaqeeyaan iyo sida kalluunka iyo xayawaanada kale ay ugu soo saaraan biyaha hoostooda. Halkan waa xeebta Curubo. waxaa jooga doomo fara badan oo ay leeyihiin dad kalluumaysato ah kuwaas oo badda ka keena kalluunka gudihiisa. waxaynu jeclaysanay inaan soo ogaano xaqiiqda dhabta ah ee ay ku shaqeeyaan kalluumaysatada Soomaaliyeed. mid ka mid ah dadka kalluumaysatada ah ee doomaha yaryar ku shaqeysta ayaan ka codsanay inuu la geeyo badda gudaheeda si aan u soo aragno waxa halkaasi ka jira. marka aad joogto meelaha ay ku soo xirtaan doomaha yaryar ee ay wataan kalluumaysatada Soomaaliyeed waxay indhahaagu ay qabanayaan kalluun fara badan oo laga soo saaray badda taas oo juhdi fara badan ay ku bixiyeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo xirfadoodu ay tahay jilaabashada kalluunka. waxaa muhiim ah inaan ogaano bulshadana ay dareento qaabka rasmiga ee ay wax ku soo saaraan dhalinyarada kalluumaysatada ah. waxaana xusid mudan wadayaasha doomaha kalluunka lagu soo saaro iyo dadka ka shaqeeya in ay tagaan meel aad ugu fog xeebaha taas oo mararka qaar waqti badan ku qaadata. Muumin Shariif oo ka mid ah wadayaasha mid ka mid ah doomahan lagu kalluumaysto isla markaana aan raacnay doontiisa ayaa noogu sheekeeyay qaabka ay u jalaabtaan iyo waliba dhibaatooyinka ay kala kulmaan marka ay badda gudaheeda ay ku jiraan. anigoo magacaygu ku bilaabay Tagoroba salaam ayaa badan ugu xiran beedkan wadda horta ugu horeyso waxaan kalluumaysanaa waxyaalaha aan u jeedid iyo motorkaas weyn iyo waxaas kalluumaysanaa iyo waxyaalaha inta ku jiro waa iska caadi. muddo ku dhow 3 saacadood ayaan ku jirnay badda gudaheeda waxaana arintaas noo fududeeyay mid ka mid ah naaquudiyaasha oo aan ka codsanay in uu nageeyo badda gudaheeda inkastoo xilligaasi ay aad u yaraayeen doomaha shaqada kalluunka ku guda jiray haddana waxa ay indhaheenu ay qabteen dhowr doomood oo ah nooca kalluumaysiga oo aad u yaryar laakiin saacado kadib ayaan bariga ku soo laabanay. naaquude Abuukar Nuur Natiina oo in ka badan 20 sano ka shaqeynayay badda gudaheeda ayaan la kulanay intii aan ku guda jirnay diyaarinta barnaamijkan. waxa uu tilmaamay in dhibaato badan ay la kulmaan dadka badda ku jira. wuxuu ka sheekeeyay dhibaatooyinka badan ee uu isagu la kulmay intii uu ka shaqeynayay badda gudaheeda. badda waxaan ka shaqeeyaa anigu 28 sano oo run ahaantii badda waa ciyaal baan ka korsaday anduun badan baan ka qabsaday hase ahaatee inkastoo aan hadda bad Soomaali aan ka shaqeyno aan nahay dad Soomaali ah oo hadda ama xagga qalabka ama xagga waxyaabaha lagu weerarka taga badda xaggeeda ay aad noogu yar yihiin. haddana badda waxyaabo badan oo dhacdooyin badan naga soo mareen baa jira ka mid ah sida hadda ka hor 1998kii oo kale waxaa inala qalibmatay bahal la yidhaha Volvo waxaa nala qalibay bustaan nooc loo yaqaano waa libaax nooc loo yaqaano bustaan ama naberi saa u taqaanidba bahalkaasi baa nala qalibay annagoo 7 rag ah 3 yaxaasaan naga cunay midna dhabarkaa tirir ka galay oo 2 habeen iyo 1 maalin waa dawaalanayni maalin saddexaada macni Volvo hobyo u sii socda badda gudaheeda annagoo iska dawaalanayna helay marka kadib waan meel xeeb wuxuu na keenay cigamel leeyahay. waxaan sidoo kale aan soo gaarnay kawaanka kalluunka ee ku yaala degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir oo xilligaasi ahaa meel aad u mashquul badan. waxaa ku sugnaa dad badan oo ka kala yimid degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir kuwaas oo u yimid halkan inay iibsadaan kalluunka. Yaasiin Cabdi Cabdulle waxa uu ka mid yahay dadka sida joogtada ah u yimaada halkan oo ah kawaanka kalluunka. wuxuu bandhiga media u sheegay in toddobaadkiiba uu 3 jeer u yimaado halkan si uu u iibsado kalluun. waxaan si toos ugu xiranahay kawaankan isbuucii mataqaana waxaan ka soo doontaa malaay sidaan wada ognahay hilibgeelka rheumatism iyo waxba laga sheegay. run ahaantii marka malaaygan
waxaan si dabiici ah u isticmaalaa malaaygan hilibgeelka sinta oo laga sheegay caafimaad darro marka anigu ma ka ganacsado laakiin waa isticmaalaa oo waa cunaa wadamada dhanna way ku wada xiran yihiin saad u jeediin dadka oo dhan hadday wada fahmeen intii xilligii hore waxaa isticmaali jira dadka koro oo mataqaanaa waddanka aan u dhalanin annaga haddaan ku soo biirnay faa'iidadiisa haddaan ogaanay iyo wuxuu yahay tayadiisa iyo wuxuu ka samaysan yahay marka laga soo tago dhibaatooyinka ay la kulmaan kalluumaysatada Soomaaliyeed ma jirtaa qaladaad ay sameeyeen dhalinyaradan u safar taga gudaha badda xilliga ay kalluumaysanayaan waxaan su'aashaasi weydiinay Naaquude Abuukar Nuur oo aan kula kulannay meel aan ka fogaan xeebta Curuba waa qaarka GPS isticmaalata ma sha Allah waa aaday horta u fiican yihiin oo hab dhaqameedkooda aad u wanaagsan sababtoo ah GPS ka ayaa wax walba u fududeynaya laakiin kuwa aan wadan dhowr siyaabood oo kala duwan bay la kulmaan qaar baa ka luma meeshan Muqdisho ah hadda dhowr bil ka hor saddex doonyo baa lumeen saddexda doonyood midna Sri Lanka laga helay midna India ka xagga laga helay midna ilaa iyo habeer meel lagu ma sheego mid kamid ah waxa saarnaa jilaaygeena oo caanka loo yaqaan Ajax wiilkiisa iyo wiil kale oo asaga abti uu yahay oo walaashiisa dhashay labada wiil baa saarnaayeen marka saabirkeeda dadka GPS la'aanta ah waxyaabo badan baa ku dhaca sababtoo ah hawada wax yar haday isbedesho ama roob yar haduu yimaado ayaga ma toosin karaan bariga meesha uu ka jiro muddooyinkii dambe waxaa sii kordhayay dhalinyarada xirfadda ka dhigtay in ay galaan badda gudaheeda isla markaana ay baadigoobaan kalluunka iyo kheyraadka kale ee ku jira badda waxaa markii hore ay dhalinyaradaasi ay la kulmi jireen dhibaatooyinka ugu imaanaya maraakiibta shisheeye ee sida sharci darrada ugu kalluumaysta biyaha Soomaaliya laakiin hadda waa ay yiraadeen sida uu xusayo Muumin Shariif والله بالله تلا ورد كبد أنت كنا مراكب شيء أو كل مثلا حيوان كلا دواته والله ما كلنا لكن مراكب كلا عادي أنت عادي أدوس واحد يقود أصلا قلب كاي نلقى كوي حرن ويكسو أكمريان معنا مثلا وإحنا كام خاضين لكن ويكو أكمريان دواته كلا ما كلنا وأسأل والله كل مجرد دواتوين فربضن مراكب فربضن وكل مثلا حيوان كلا دواتوين كاسنوان أركني والله كلنا لكن أسأل كاسد وقتي أسأل يسوق جدبي وقتي ورقات أدي وعاد أدي 2000 أدي وح عمل إيه 2000 أدي أنت سبين عملها سيئات لو كنت وني لحظة سلام في لا حلقة سيئات لكن هذا ما عرفنا إحنا دلوقتي أم مصر ما عرفنا السنة نظام إيش كانوا صبحنا ترب مشي كرمانة وقالنا الحمد لله إلهين ومن سدان نبض نحبتين وكمان dadka kalluunka ku iibiya kawaanka malayga ayaa sheegay in ay aad u shaqeystaan xilliga badfuranka suuqana uu noqdo mid aad u mashquul badan waxaana yimaada dad badan oo doonaya in ay kalluunka iibsadaan بدأ سوي فرمت الحمد لله ما شاء الله سوق معنا واحد خسارة الله مجرو ملايقة سالكينا قربتي سديس ساعة دوما كبعان هذين كذا ومقنانا عايز سوق لها لبس ساعة 6 ساعة سي كل ذنبيان أي كل متروين مت متور عسارة فرتن كبار مدو عسارة صدن كبار مدو عسارة لحظة كبار سوق كل ليرة كل صور مرايل ملايقة غير سوق له نادي له قدامر ولا نادينا منا $100 جرا منا $120 قدرة $160 $140 والمو داري لا مكتئ عندنا بريوتنا جاي منك ولا حولها على انه ملاقاس $100 ليسي معايب افكار walki dadka qaar ayaa iska joojiyay cunista hilibka geela oo ay Soomaaliya si aad ah u isticmaali jireen waxaana taas sababay sida ay hadda Soomaalidu ay u fahmeen faa'iidada kalluunka waxa kale uu fiican yahay fadhiga badan aalamitada u badno hilibgeelka saas awgeed raashin malay ugu sameeyo waxaan isticmaalaa malaygaas toos u dawalay aan isticmaalaa wax romantism ay waxna kuma arka si kastaba ha ahaatee haddii dadka Soomaaliyeed ay si siman u fahmaan faa'iidada uu leeyahay kheyraadka ku jira biyaha dalkeena wuxuu dalku yeelan lahaa wax soo saar wanaagsan dhalinyaro badan oo hadda aan shaqayn oo ay ka bixi lahayn shaqo la'aanta waxaana taas ay ku xiran tahay hadba sida aan u fahamno waxa ku jira badda oo Ilaahay noogu manaystay barnaamijkan waxa idin soo gudbinayay bandhiga media oo aad ka heli doontaan sheekooyin badan oo ay ka faa'iideysan doonaan bulshadeena tan iyo kulanti dambe nabadgelyo